بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaad arkayseen shalay laba madaxweyne Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynaha talada hadda jooga iyo madaxweynihii asaga kursiga ku wareejiyay termkiisii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo isku eedeynaya midba midka kale inuu yahay jaajuus u shaqeeya dowladda shisheeye haddaba waxaan rabaa adinka oo ka madax bannaan qabyaalad nin jeclaysi iyo kooxaysi inaad ka jawaabtaan yaa ah jaajuus u shaqeeya dowladda shisheeye korinta aadna ka jawaabin su'aasha waxaan rabaa inaad heshiyo information kooban oo ku saabsan labada nin iyo shisheeyaha haddii aan ku hormaro madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud doorashadii dhacday 2022kii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ka saaciday dhaqaale ku bixiyay campaignkiisana qayb weyn ka qaatay dowladda Imaaraadka Carabta walow markii uu madaxweynaha noqday oo ay muddo wada shaqeeyeen kadib ay isku dhaceen oo uu dalka ka eriyay hadda waxaa booskaas u bedeshay dowladda Turkiga waad ogtihiin sida u jeceshahay inay kursiga ku sii hayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haddii ay dhici weysana in ay dhacdo doorasho uu og yahay inuu asagoo ku soo baxayo inay kala shaqeeyaan qofka labaad waa madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo hadda ay saaxiibo dhow iyo jaal ay yihiin dowladda Imaaraadka Carabta oo doonaysa inay u dhisto doorashada soo socota inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya ayagoo kale laba ujeedo dhisitaanka Shariif Sheekh Axmed midda koobaad waa inay ku jiibiyaan Xasan Sheekh Maxamuud oo ay aaminsan yihiin inuu ku abaal dhacay oo ay ka dhigeen madaxweynaha Soomaaliya uusan u fulin ballamihii uu ka qaaday midda labaad waa in Shariifka ay u dhistaan Soomaaliya si uu madaxweyne uga noqdo oo uga gaaraan danaha ay ka leeyihiin Soomaaliya adinkoo isticmaalaya informationkaas kooban ee idin siiyey iyo inta aad information ay adinku aad haysataan yaa jaajuus u shaqeeya dowladda shisheeye labada madaxweyne ee Soomaaliya waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.